kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa halkani waa qaranimo online xafiiskeeda magaalada Toronto. caawa waxaa inoo suurta gashay inaan waraysi ama aan shirar la yeelano qaar ka mid ah guddigii qabanqaabada shirarkii ka dhacay magaalada Toronto ee lagu taageeray dawladda federaalka meelgaarka ah kasoo bilow shirkii dib u heshiisiinta Djibouti ilaa iyo doorashadii madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. haddaba annaga oo su'aal ka mid ah weydiinay dadkii halkan isugu yimiday ayaa waxaa su'aasheena ka mid ahayd maadaama aad ahaydeen dadkii soo qabanqaabiyey shirarkii ka dhacay magaalada Toronto maxaa idiin qabsoomay sidee soo aragtaan qaab uu noqon doono shirkan. haddaba kulankeena caawi waxaa ka soo qayb galay nabadoon Hilowle Shiino, Cornel Maxamed Faarax Caliyo iyo injineer Aadan Cabdo iyo Xuseen Cadaani oo ah milkiilaha maqaayadda Milan Restaurant. kusoo dhawaada qaranimo online. bismillaahi raxmaani raxiim. aad mahadsan tahay maaragtay qaranimo online markasta maaragtay sida fiicanay diyaarka ugu tahay inay maaragtay howlahan ay mashquul ku noqoto Soomaalida dhiirigelinteeda. haddaan ka hadlo arrintii maaragtay ku saabsaneed inaan qabanqaabino taageeradii maaragtay ku saabsaneed shirka Djibouti iyo doorashadii madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dawladdii lagu doortay. taas hadee si fiican ay noogu hirgashay anagoo muddo maaragtay isku mashquulinayna sidaan maaragtay loo aynan u samaynin hal community kaliya ama hal qolo ama hal urur. waxaan isku dayna marka hore aan ka bilownay inaan isu keeno marka hore, waana suuro gashay dadaal dheeraada kadib ilaahay wuxuu sahlay in isku si loo suubiyo isku aragti laga noqdo. arrintaas waana noo hagaagtay. waxaa kaloo qayb ka qaatay inay hagaagtay arrintaas maadaama labada qof maaragtay madaxweynaha iyo prime ministerkaba ay yihiin dad sumcad leh inay ahaayeen, ay qayb weyn ay ka qaadato dadkana aada isugu soo baxay. sababto waxay tahay productiga aad gadaysa lafteeda qaybay ka qaadanaysaa markaad marketinga aad maaragtay wax iibinaysa. marka taasna haddee Soomaali oo dhammaa dhehayso maaragtay afka ku hayso. marka cayuumnaaska waxaan rajaynaynaa maaragtay in ilaahay ka maslaxo. waxaa igu soo dhacday islaan eedaday oo 4 jirdiino sar intay ku dhisato maaragtay ka weyn sariir kale, markaasay subax hore intaana dadka soo kicinaya waxay samayn jirtay cusbi intay ku fardhisay dhihi jirtay maaragtay muxuu ahay ishiina baxarka. marka waxaa igu soo dhacda marka waxaan leenahay cusbo badanaa lagu fardhiyaan leenahay maaragtay madaxweynaha iyo prime ministerka maadaama dadkay aad u hadal hayaan maaragtay afka ku hayaan. tan kale maaragtay dawladda maaragtay sida hawsha u dhacday aaday maaragtay dadka u dhiirigelisay inay maaragtay hawshaan hididiilo fiican ayaa muuqato. dadkana rajadooda aaday maaragtay ay u fiican tahay. waxaana rajaynaynaa inay taas sii socoto. meeshan aan joogno anaka dhibaatadana haysato waxaa ka hadlaayo maadaama prime ministerka oo Canadian yahay oo hore u joogi jiray Ottawa, dhibaatadan haysta asagaa nooga wakiila maaragtay ambassador asagaa nooga. laakiin dadkayna dad badan oo loo baahan yahay jiro farsamo yaqaano maaragtay nooc walba leh ay ka kooban yihiin oo ay ka mid tahay maaragtay markii hore Soomaalida waxay bari jirtay beeraha iyo xanaanada xoolaha, laakiin dadka hadda noo jooga waxay barteen sida maaragtay dadka loo dhaqo, sida dadka loo ilaaliyo lafteeda. waxay noqotay maaragtay maado weyn ee loo baahnaay. marka saas darteed waxaan leenahay dad badan oo waxaan kaloo baranay inaan shaqayno 8 saacadood oo isku xigto. ayada lafteeda wadanka qayb weyn ka qaadanaysaa. ileen ma diriri lahayn wadanka haddii aan 4 saac kaliya haddaan maaragtay shaqay lahayn xataa waqti aan ku dagaalamo helnayn. marka waxaan baranay inaan 8 saac oo isku xigto inaan shaqayno. marka waxaan rajaynaynaa maaragtay inaad nagala faa'iideysan karo mustaqbalka maaragtay soo socdo inaan insha Allah dadaalkayna qaybtayna ka qaadano. marka waxaan maaragtay odayaasha kala marka hawsha
aan kusii wareeji doonaa maaragtay insha allah meesha ile waa lagu badan yahay akhyaarta kale maaragtay bal ayakana waxaa ka yidhaahin haddana waxaan ku wareejinaynaa injineer aadan cadow oo halkan fadhiya kusoo dhawaad injineer aadan waad mahadsan tahay sidoo kale waxaa waaye qarannimo ragga ka shaqeeya oo dhan waa ku mahadsan yihiin fursooyinka ayna siiyaan iyo hawlihii ay nala soo qabteen inta aan hawlahan ku guda jirnay laga bilaabo shirarkii Djibouti doorashada madaxweynaha Sheekh Shariif iyo doorashada ugu dambeysay oo aan u sameynay ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke intaba waxaa waad ku mahadsantihiin hawlaha iyo sida noo soo garab qabateen wixii hawlo ahaa ama qabashadii aan qabanay walaalkay Hilowle ayaa ka soo hadlay anna waxaan rabaa wax yar bal inaan ku yar darsado ujeeddada ugu horeysay horta aan u bilownay inaan hawlahan abaabulno waxay ahayd inaan mideyno horta community-da Toronto jooga oo markaas kala fikrado ah ujeeddada ugu weyn waxay ahayd inaan abaabulno soo ururino ummadda Soomaaliyeed oo degan Toronto gaar ahaan community-da oo dhan ilaahayna wuu nagu garab siiyey waa ay naga aqbaleen marka aan hawsha soo jeedinay si fiicanna oo wada shaqeynay kulli saddexdaas qabanqaabo aan soo galnay ma u kala harin community-da oo dhan ragga jooga Toronto yar iyo weyn waa yeel waxgarad wixii oo dhan waa la wada qaybgalay si fiicanna ilaahay wuu nagu dhameeyey haddana marka maadaama ay noo dhammaadeen hawlahaas weli rajadayna waxaa waa inaan hawlaha meesha ka sii wadno ilaa ay dowladda ka dhisanto full taageer aan wada siino annagu dhan inaan u kala harno ma rabno intaas waxay ahayd qaabkii aan u abaabulnay iyo guddigii qabanqaabada ka qaybgalay iyo hawlihii aan soo qabanay iyo gacansiintii qarannimo ee naga soo siisay hawlahan fulinteeda iyo warisgaarsiinta meeshii arrinta ii joogtay aan sii wado waxaa waaye intaa waxay ahayd hawlihii iyo qabanqaabadii Toronto aan ka haynay marka aniga warka aan ugu bixi doono mataqaanaa walaalkay Maxamed Faarax waxaan rabaa laba fariin inaan u diro ummadda Soomaalida kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka jira labada fariin mid waxaa iskale ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo golaha wasaarada oo dhan oo la doortay mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta waddanka waxaa waaye fariinta idin diray waxaa waaye in aad isku daydaan xal nabadeed inaad gaartaan mahmaaba hore u jirto la yiri fikradaha dadka way kala duwan yihiin wayna adag tahay si lasugu toosiyo marka iskuma soo toosa si fikradaha ummadda dadku way kala duwan yihiin haddii aad rabtid inaad isku soo toosisid ma isku toosayaan waa sida adoo lagu yiri laba cirbadood afkooda isku toosi isa saar fikradaha dad saas u kala duwan yihiin laiskuma toosi karo laakiin waa la isku soo dhaweyn karaa marka waxaan idinka rajaynaynaa in fikradaha maanta yaalo waddanka iyo dhibaatada inaad isku daydaan inaad xal u heshaan iskuma toosin kartaan isma saari kartaan isku soo dhaweeya fikradaha ummadda xagga si nabadgelyo loo gaaro dagaalada in la joojiyo in laga fikiro dhismaha waddanka ummadda in la heshiisiiyo in dadka oo waxa tabanayo lala fariisto miis nabad la fadhiisiyo marka fariinta aan idiin soo gudbinayo raggiina mas'uuliyiinta ah oo jooga waddanka ugu horeeya madaxweyne Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid iyo golaha wasiirada oo dhan
iyo dadweynaha ummadda soomaaliyeed ee maanta waddanka jooga. Fariinta labaad oo aan wado waxaa waaye jaaliyaddeena Toronto, Canada iyo guud ahaan meel kasta ay joogaan Soomaalida, ayagana waxaan ka codsanaynaa oo fariin ahaan ugu dirayaa in si buuxdo oo kal iyo laab ah in loo taageero dowladda, in garab la siiyo howlaha waddanka gudihiisa ka socdo. Waddanka waxaa kiciya ama damiya waa dadka qurbaha jooga waay. Marka waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin in loo midoobo. Soomaaliya dagaal way ka hortimid, dagaal waxaa waaye waddanka wuu baabi'iyey, ummaddii wuu isku diray. Marka waxaa isku daydaan fursaddii ugu dambeysay inay tahay umalaynayaa meeshan in dowladda ay noo dhisanto. Marka fariintaas labaad oo dadka jaaliyadda aan gaarsiinayo. Marka waa mahadsan tahay aadan, injineer aadan, adiga iyo qarannimo iyo asxaabta meesha ka shaqeynaysa oo dhan fursadda aanoo siiseen caawa fikradeena aan soo jeedin halkan. Marka walaalkay Maxamed Faarax ayaan u baxayaa arrinta. haddana waxaanu kusoo wareejinaynaa Cornel Maxamed Faarax Caliyo oo ah dadkii ka mid ahaa qabanqaabayaashii shirarkii ka dhacay magaalada Toronto. Kusoo dhawow Cornel. qarannimo online aadan aad ayaad u mahadsan tahay. aad u mahadsan tahay. waxaan u malaynayaa wareysiga aan nala yeelatay inuu intaan ku ekaa doonin. annaga kaligeena aan ahayn dadkii arrintaas soo qabanqaabiyey. meeshaad afar ka heshaba inaad saan oo kale u wareysan doonto. annagaba caawa meeshaan aan ugu qabatay annagoo iska casheynayno oo kuma talagelin inaan noo imaanaysa, laakiin kaamaradaada iska wadataa meel walba un waxbaad gaade. marka meesha annagoo ku casheynayna meesha nagu qabatay geedkaad in naga buuxsataa rabtaa oo aadna weydiisid waxyaabihii nagu kalifay inaan sameyno wixii wanaagsanaay oo aan sameynay oo shirarkii taageerada ahaa. marka ugu horeyso waxaa waaye haddaan warbixin ku siiyo shirarkan guddigii soo qabanqaabiyey oo bilaawgiisa lahaa hadda ma bilaabin. guddigaas waxay isku xirmeen ay bilaabeen arrintooda bilaabeen ku walaaloobeen inay waagii siyaasadda xumaatay oo Ethiopia waddankeena soo haweystay inay soo gasho ama intaysan soo gelin ay qabanqaabinayaan inay soo galeen ayay bilaabeen. odayaashaan isku xirmay iyo dhallinyarada isku xirmay oo arrinta waddanka inay wax ka qabtaan rabaan. arrintii Ethiopia markay waddanka soo gashay ee waddanka qabsatay waxaan dagaal weyn oo siyaasadeed ayaan halka qaadnay. inagoo internetyada iyo saxaafadaha iyo siyaasiyiinta waddankan mataqaanaa gaarsiinayno dhibaatada iyo Soomaaliya haysato iyo Ethiopia say waddankeena u qabsatay, siday dadkeena u barakicisay, dhibaatada ummadda Soomaali soo gaartay iyo baahida iyo gaajada iyo in guryahooda la dumiyo, ilmihii iyo hooyooyinkooda iyo wixii dhan dhibaatada banaanku maantana ay banaanka jiijiifaan oo dad ka badan 2 milyan oo qofood ay naftoodu maanta halis ku jirto ay dhimanayaan haddaan wax loo qabo. arrintaas waqtigaasay bilaabatay. hadda markii ay diilo yar aan helnay oo ah in shirkii Djibouti lagu heshiiyey, isla markaasna shirkii Djibouti uu keenay inay dowladdii iyo dadkii mucaaradka ahaa qaarkood ay heshiiyeen, inay ku heshiiyeen inay hal dowlad dhisaan oo hal barlamaan dhisaan oo Ethiopia waddanka laga saaro. arrintaas annaga naftirkeena annagoo arrimahaas ku howlaneen sida iyaga dadkii Djibouti ku shiray ay u arkayeen inay guul u gaareen, annagaana horta aan ugu faraxnay oo guul annagana u gaarnay maadaama aan ku howlaneen oo codkeena iyo qoraalladeena meel dheer ay gaareen. waxaan annagana intay qabteen ay ka badan aan qabanay. aadaan ugu mahadinaynaa iyaga. annagana hawshii aan qabanay qof ayaan isku mahad celinay. arrintaas oo annagoo isle inaan goolkaa wax ka dhalinay taageero weyn aan u sameynay. guddigii oo walba howlahaas ku howlanaa haddana waa isku nimid inaan taageerno arrintan iyo guushaa la gaaray aan taageerno. arrintii markii aan taageerno oon sameynay xaflad weyn oo taageero aan sameyn
haddana tii madaxweynaha ayaan haddana taageero weyn aan u qabanqaabinay kabacdina guddiyaal kale oo soomaaliya oo iyaguna arrimahaas ku tala jiray inay iyagana shirarkaas qabtaan ayaan dhahnay war maanta goorgoorin loo qaban lahaa maan isku nimaado waan isku nimid waxaan sameynay shir weyn oo lagu taageeray madaxweynaha haddana waxaan sameynay shir weyn oo lagu taageeray prime ministerka lagu taageeray iyo dowladda arrintaas runtii sida ay u dhacday iyo dadkii badnaa ka soo qayb galay iyo midaynta shucuurta dadka soomaalida jaaliyadda soomaalida ee halka joogto Toronto joogto u dhacdeen saas haddii fanaaniintii oo inala qaban lahayn sida Dhaleys oo kale Lagaruub oo kale Batuul oo kale wiilal kale oo fanaaniin oo iyagana joogo shacabku jecel yihiin iyo dadkii isku dhafnaay oo aan u muuqan qabiil iyo waxba u muuqan isku si wax u qabanqaabinaya isku meel ku shiraayo oo arrintaas qabanqaabinaya saas dee ahlan maana isla markaasna Toronto dhan ka soo qayb gashay anaga marka waxaa noo soo baxday in Soomaaliya la miday karo in furadeen la isku keeni karo inay u baahan tahay kaliya abaabul in loo galo sababtoo waxaan garanaynaa halka waxaa ku yaallo ugu yaraan 70 community oo Soomaaliya oo kulligood Soomaali wada jecel laakiin qaabyaal kale maartay siyaalo kale iyo u kala in qof walba meel uu leeyahay laakiin hadda wixii dhan waa midoobeen si isku mid ahaan u taageernay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dowladaba si isku mid ahaan u taageernay haddana aimkeenu wuxuu yahay anaga inaan u soo jeesano inaan arrintii aan wadno aan qoraallo u dirno meel walba dadkeeni Soomaaliya joogay xataa aan kusoo darno inay midoobaan maanta dhibaatada ka taagan Soomaaliya dhibaatada taagan waxaa waaye walaalow hadduu gurigaan dumo gurigaan wuxuu ku taagan yahay tiirar uu ku taagan yahay tiirarkaas hal xabba hadduu dumo gurigu waa daciifa laba hadday dunto waaba dumaaba marka waxaa meeshaan dunsan tiirarkii ee qarannimada ku taagneed ayaa dunsan ilaa tiirarkaas la taago oo kor loo taago oo la adkeeyo qarannimadu ma taagnaanayso dowladduna xoog ma yeelanayso waxaa dadka dhan waxay noqonayaan dadaan isu talinay noqonayaan marka tiirarkaas baarlamaanka waa dhisan yahay madaxweynihii waa la doortay prime ministerkii iyo dowladdii waa la doortay oo waxaa loo baahan yahay sharci in la keeno sharci hataa haddii mid la qoro xataa kan oo diintana ma ka dheero sharcigayna horeba waagi horeba waxaa lagu maamuli jiray maxkamadaha dhan maxkamadda badbaadada moogi inta kale diinta lagu dhisi jiray marka sharciga marka la dhiso sharciga laftiisa wuxuu u baahan yahay difaac u baahan yahay sharciga waxaa loo baahan yahay qofkii sharciga jabiyo ciidanka soo qaban lahaa loo baahan yahay biliska soo qaban lahaa loo baahan yahay maxkamaddii la keeni lahaa loo baahan yahay laakiin wixii hadday isku matalisan noqoto oo ninkii qofkii wax dilay iyo qofkii daacaddahay isku meel ay soo fadhiisanayaan waxa laga qaban karo male marka anigu waxaan ku talin lahaa dowladda kula talin lahaa Soomaalida dhan kula talin lahaa in la soo celiyo ciidamada qalabka sido la soo celiyo isla markaasna sharci la sameeyo qofka dambilaha dambigiisa lagu qaado oo sharcigiisa lagu qaado la raadiyo in maaragtay nabadgelyo laga abuuro waddanka laga abuuro taasna waxaa keeni karto in ciidamo arrimahaas qabto la helo haddaan la helin sidaasay u ahaanaysaa waa ka baxay haddana waxaa inoo suurta gashay inaan weydiino su-aal milkiilaha maqaayadda Bilan Restaurant Xuseen Cadaani ahaana jiray kana mid ahaan jiray xogkii qaranka orodada dalka Soomaaliya waagii berisamaadkii Xuseen su-aashaan ku weydiinayna waxay tahay sidee ayaad u aragtaa qabanqaabada shirarkii ka dhacay magaalada Toronto lagu taageeriyay shirarkii Djibouti madaxweynihii la doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid sidee ayaad u aragtaa arrimahaas qarannimo online aadan aad ayaad mahadsan tahay waana ku faraxsanahay sida ay soo fiisgareyseen fikradda aniga marka ay qabtaan shirka labada marba waa tegay jaalid Soomaali ahaan iyo businessman ahaan iyo ciyaartoyda qaranka ahaan anigu waan ku support gareynaa programka ay groupkan wadaan hiil iyo waa garab taaganahay waana wax lagu farxo muddo ma arkin macnaha maaragtay kulanka ay sameeyeen oo kale maalmahan ma arag laakiin
labadii maalin ugu dambeeyay kulankay sameynaya kulan weyn oo ahaa ee Soomaalidu iskugu yimideen waxyaabaha loo baahan yahay waa waxyaabahaas la iskugu keeno community Soomaalida si macnaha maaragtay ka dhex dhaco macnaha isdhexgal heshiis walaaltinimo isjecel aad iyo aad macnaha maaragtay ugu faraxsanahay waan ku taakuleynaa hiliho waxay u baahan yihiin midda kale Soomaali community halkan waxaan ku joognaa 80 kun waxaa la yiri far kaligeed fool ma dhaqdo waa inaan isku nimaadnaa waxyaabo badan aan sugaay haddana Soomaali community waa inaynu macnaha isgarab qabanaa waa inaynu iskaalmaysanaa waa inaynu iska ilaawnaa wixii hore lees cafiya la su'aal fiyaabad marmarka qaarkood anigu waxbaan tiriyaa shirb waxaan dhahaa allow dawladna si dalka shay waa ku daalnay allow daalanka reeb iyo dulmi la dudka toogaa allow diinta koryeel kuwa duraa daad karacsi shiribkaan mar horaan tiriyey marka waxa waaye waddankayga waa waddanka hooyo waxa waaye lagama maarmo waxaa anigu kula tiri lahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa inay isu sacab dhiibaan waa inay is cafiyaan waa in wixii hore la iska ilaabo dad muslimaan ah annaga diinta muslimkan ku soo dhaqmi jirnay haddana waa ku dhaqanaa tafraaruqa ma fiicno waxaa fiican in macnaha maaragtay ulul amriga la raaco wuxuu rabaa ahaado ahlu diinka laftigooda ulul amriga ha raacaan waxaa waaye waa in la support gareeyaa dawladda diintaa dhigayso in ulul amriga la raaco haddoosan ku dhahin diinta ka baxa dukanin ilaah laga cabsado ummad muslimaan annaga aad iyo aadaan macnaha maaragtay ugu faraxsannahay dawladda la dhisay madaxweynaha iyo barministerka iyo wasiirada iyo baarlamaanka waxaan rajaynaynaa inuu shaqeeyo insha Allah waana mahadsantihiin intaasna waxaan kusoo gabagabeynaynaa kulankii caawa aan la yeeshay odayaashii magaalada Toronto Hiloola Shiino Cornel Maxamed Faarax Engineer Aadan Cabdow iyo Xuseen Cadaani barnaamijkeena caawa intaas uu ku egyahay waa habeen isniin ah bisha Febraayo ay tahay 23 2009 halkani waa qaranimo online tan iyo kulantigeena dambe nabadgelyo